بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو معلم حمزة عيد، معلم حمزة عبد حي، أو كما قاعد يقولون حمزة عيد. نلام سال على محمد آد من ذي السلام هنا. أنا ولالك هالكان ماركتي channel كان له عبد الرشيد عبد الله عيد. وادكم على سنتي داوشدينا. حدو سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واحد دون أن كهذا الله قلب يرو مهمة أو بدنا إن وضع قصير وقصة واحد برشان. قلب كسر كسب سيء هاي. واحد دون إن واحد برشدين وخرمت. أوكي. ما حين كرمنا إن واحد برشدين وخرمت. سؤالها واحد برشان وامحرت. waxbarashadu waxa weeyaan waa xuquuq qof kasta leeyahay. qof kasta oo aan oran karo xataa maaragtay uu gaaray xilligii wax baran kari lahaa taadi doontaa waa xuquuq qofkaas leeyahay marto. waana mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee sheega horumarka bulsho iyo waddan, society iyo country labadaba. macna dad bulsho iyo waddan baa hadii la doonayo horumar inay gaaraan waa in waxay horumar ku gaarayaan heerka waxbarashadooda ay gaarsiisan tahay. Marka taas waxbarashadu waa taa isla qaadanay qof kastana uu og yahay in waxbarasho la'aanteed aanay waxba soconayn. hadii la doonayo horumar la sameeyo in aqoonta la horumariyo taas waa qodob aad muhiim ah. waxaan ka hadlaynaa qodob ka simid oo muhiim ah oo ku saabsan waxa la yiraahdo academic performance ama academic achievement oo macnaheedu yahay tayada waxbarashada. waxaa la wada baran karaa iskuul wada tagi karaa waxa la qaadan karaa alamsala buugaag wala qaadan karaa iyo qalimaan, laakiin waxa laga yaabaa tayadu inay sidii loo baahnaa aanay ahayn baa suurtagal marar badan. sidaa daraadeed waxaan u baahanahay wax ka yar hadlaya qodobo yaryar oo muhiim ah oo loo arkay in tayada waxbarashada alamsala ala maxamed ee lagu xoojin karo. koow waxaan ka hadlayaa academic performance waa maxay, tayada waxbarashadu maxay tahay horta. waxaan ka hadlayaa qodobo saameeya tayada waxbarashada oo daaran ardayda badan ardaydu bay ku dhacaysaa marka ay tayada waxbarashada iyadoo de macalinka iyo institutionka iyo kulba iskuulka ama jaamacadda wax ka dhiganayaan ay saameynayso. haddana saddexda ugu weyn ee qodob uu saameynaya waa ardayga iyo macalinka iyo iskuulka iyo school system. intaas ayuu alamsala ala saddexda qodob uu markaa u yahay alamsala ala maxamed. population ama meeshan xiisayna interestkiin waxa weeyaan alamsala ala saddexda dad weeyaan waa dadka ardayda ah, dadka macallimiinta ah iyo institutionkii maaragtay iskuulada inta weeyaan. haddaba waxaan ka jawaabnaa academic performance waa maxay qodob iyo maxaa saameeya academic performance-ka iyo qodobo academic performance ama tayada waxbarashada aan ku horumarin karayna. academic waa shay uu ardaygu doonayo laga rabo macalinka laga rabo iskuulka laga rabo si waxa horumarka goolka objective-ka ah inay waxbarashada institutionka la horumariyo sidii loo gaari lahaa ama waxa ku saabsan noocaas oo kale ayaa laga garaa. academic performance waxa weeyaan waa processka iyo shayga ama waxa la sameynayo ee laga rabo ardayga iyo macalinka iyo iskuulkuba inay gaaraan si ay goolka calaamadsadeen ee ah tayo waxbarasho oo qof kasta ku habboon oo xoog badan in la sameeyo. marka laga hadlayo haddaan yar kala qaadnay academic performance labada eri. academic waa cilmi aqoon, performance waa performance marka management la dhiganayo performance waxa lagu qeexaa waxa la yiraahdaa waa increasing efficiency and effectiveness of tasks to reach organizational goals and objectives. macnaheedu waxa weeyaan in alamsala ala maxamed efficiency and effectiveness labada eray baa lagu qeexaa marka laga hadlayo performance. efficiency waxa weeyaan waa wixii aan doonay inaan gaaro anigoo isticmaalay with a balance of resources.
resources ka aan haysto iyo waxa aan haystaa sidii uga faa'iideysan maana wax alla waxaan luminaya ma jirto waqtigii ku habboonaa ayaan ku guuleysanayaa oo uga faa'iideysanaya si uu gaalo to reach organizational goals and objectives san qodobada uu gaaro isku yaala iskuulka ama institution ama company-ga si aan u gaaro waxaan isticmaalayaa habka ugu macquulsan ee balance ah oo resources-kayga aan wada isticmaalayo aan waxba luminayn taas waa efficiency effectiveness waxa la yiraahdaa inaad gaadho wixii loogu talagalay adigoo isticmaalaya any method macna wixii wax way lumi karaa laakiin adiga waxa laga doonayaa inaad gaadho shayga gaar laakiin no matter organizational resources macna waxa iska yiri laawi kartaa iska yada fiir kartaa wixii doontaa ku qaato waxba waxa sameeyay qabsan hadii arday kastaba inuu gaadho heerka aan si fiican wax barto inuu academic achievement aad u wanaagsan inaanu qofna naga dhicin no matter waqtigayga iyo qarashkayga danka wali hadii la gaadho qodobka iyadoo resources badan ba lumiyay waa effectiveness hadii aan waqtigiina la yareeyo qarashkiina la yareeyo resources-ka laga faa'iideysto waxa efficiency baa marka alaam sal ala maxamed islaam manaysaa performance-ka hadda doonay academic performance-ka waa inaan isticmaalaa efficiency resources-kayga isla markaana effectiveness isticmaalaa saan soo sheegnay marka waqtiga ugu habboon iyo resource-ka ugu badan oo efficiency in isticmaalo iyo wixii doonaa hal waan inay heerka gaadhay waa performance-ka waxyaabaha lagu qasheeyo academic performance waxa weeyaan waa sidaas waa in la gaaro wixii organization ka sama waxbarashada ah iyo waxa uu wanaagsan laga alaam sal ala maxamed la dhigan kara academic performance oo goalkiisu wuxuu noqon karaa inta ya xoogan oo waxbarashada oo laga dareemo macalinka oo laga dareemo maamulka iyo institutionka oo laga dareemo ardayga mid kasta qof kasta satisfaction macalinka job satisfaction dareemo nimanka maamulka ay dareemaan inay shaqada ku qanacsan inay jecel yihiin ardayguna uu happy ku yahay saadreeda qodobka hadii la helo waxbarasho tayo leh oo ka muuqata academic achievement iyo imtixaanaadka kala yeeliyo tayo qofaan laga saadreeda academic performance ka xigeenkiisu asu noqonaya waa sidaas waa waxa la sameeyo ee ardayga iyo macalinka company ama institution kuba oo waqtigiisa short term iyo long term uga faa'iideysanayo suu gaaro educational goals waxbarashada goalska waxbarashada ku saabsan ee la dhigtay ee tayo wanaagsan la sameeyo marka waxa weeye qodobka doonaya kale ka hadalna waxa weeye ma jiraan qodobo saameynaya academic performance haddii soo garanay in laga rabo ardayga iyo macalinka institution inay gaaraan goalka educational goals kooda ee tayo waxbarasho oo wanaagsan in la helo maxaa la mas'ala maxamed ya qodobo yar saameyn ma laga badan oo increase or decrease way waxyaabaha saameynaya waxa kamid ah ardayda gaar ahaaneed maadaama toos ardayda ku dhacayso waxa kamid ah gender difference oo waxbarashada waxyaabaha saameynaya waxa kamid ah kala duwanaanshaha ragga iyo dumar maadaama dumar iyo rag ay labadaba dhigtaan laga yaabo inay same class yihiin waa suurtagal aan different classes waxa dhacaya alaamsan ala maxamed in genderkaas wuxuu keenaya in la kala sarreyn karo keeni kara sababtoo ay doonto laga yaabo in dumarku ku badan yihiin guriga iyo shaqada xagga raguna aqoonta guriga ha ahaato waxay doontaa ha sabab ha ugu noqoto laakiin kala duwanaanshaha genderku waxyaabaha saameeya ayuu ka mid yahay academic performance ee laga yaabo genderka qaar ka mid inay hoos ka hooseeya kuwa kale age-ka waxbarashada galaaska tan hal galaas ka soo qaado age-ku saameynaya qof taadiisu yar tahay iyo qof taadiisu weyn tahay oo macna taadiisu aad u yar tahay oo kale sidii loo baahnaa inaan noqon ayaa la arkaa habka weyn wax laga yaabo in ka dadaalbato waxyaabaha kale ee saameynaya waxa kamid ah ardayga tusaalahaan waxbarashadiisa saameynaya waxa kamid ah academic performance on students waxa kamid ah lamsala traveling time to school or university dumeel fokay maayo waxa laga yaabaa inuu habsaamo waxa laga yaabaa isagoo daalan inuu imaado way saameynaysaa dumeel fokay maayo waxa laga yaabaa inuu ka hooseeyo qofka meel dhow ka imaanaya kaadfadhiga qodobka laftiisuna uu saameeyo
اللهم صل على محمد وسام academic performance waliba gaar ahaan xagga ardayda waxa laga yaabaa income father ama family-ga qarash ahaan waxay haystaan hadii family-gaasi laga yaabo in allahuma salli ala maxamed uu dakhligoodu yar yahay waxa laga yaabaa inay saameyso waxbarashadiisii halkan inuu ku saameeyo suurtagal waxa suurtagal isagoo soo qoraan inuu kalaaska yimaado alajoo gaajoonaya la yidhahdo cashirka fahmo waxba inaynu fahmin taagsigeeda waxaa dhici karta qofkii oo qarash badan hadduu helayo inuu ka badato qarashkii oo laga yaababa inuu waxbarashadii uu ku ilaawo ama uu wax yar ka soo qaado kaa labadaba say doontaba ha ahaatee waxyaabaha saameynaya qofka qoyskiisa hadduu qarash badan haysto iyo haddaanu haysan waa waxyaaba saameyn karo oo kala kordhin kara waliba waxay u badan tahay qofka qarashkiisu reerkiisu ay yaryihiin inuu saameyn aan wanaagsanin ku yeesho waxbarashada laga yaabaa dakhligiisu hadduu aada hooseeyo waxaa laga yaabaa inuu waxbarashadii ilaamsada maxamed hoos uga yaqaano sidii kii qarashka fiican loo helay waxaa suurtagal sidoo kale cagsigeeduna way dhici kartaayo qof reerkiisu qarash badan oo hayaan ayaa waxaa dhici karta inuu waxbarashadii uu ka hooseeyo isagoo oo waxay doontaba sabab ha u noqotee ictibaarinaya in macnaa reerkiisu uu wax fiican haystaan weeyahay waxyaabaha kale ee allahuma salli ala maxamed galaaska saameynaya ama waxbarashada inta galaaska lagu jira ardayda saameyn kara waxaa kamid ah sitting back in a classroom waxaa dhici karta ardaygu hadduu xagga duma fadhiisto iyo ardayga xagga hore fadhiistaa badanaa waxaa lagu taliya ardayga xagga hoose hore fadhiistaa inuu hadalkii ka maqli og yahay macallinka uuna ka fahmo badan yahay marka loo eego qofka xagga dambe fadhiista sidaa daraaddeed qofka xagga dambe fadhiista waxaa la arkaa inuu ka wanaag bato oo academic achievement ka wanaagsanaayo kuwa allahuma salli ala xagga hore fadhiista sidaa daraaddeed baa lagu taliyaa marar badan oo macallinkuna kula taliyaa inay ardaydu xagga hore soo fadhiistaan waxay dhici kartaa attendance-ga oo ardaygu maalin kasta joogaan iyo ka aan maalin kasta joogin kan saameyn wanaagsan waxaa ku yeelanaya maalin kasta jooga academic achievement-kiisu wanaagsanaanaya academic performance-kiisu ka wanaagsananaya ka maqan saas way badalka macallinka ku taliyaan ama iskuulla xisaabtamaan maalin kasta inuu qofku joogto ahaa si academic achievement-kiisu u wanaagsanaa gaata attendance-gu wuxuu ka mid yahay qodobada saameeya academic performance waxyaabaha kale saameeya waxaa ka mid ah internet usage for the student internetka la isticmaalo waxyaabaha saameeya waxbarashada ka mid ah say doonaan baa u saameyso hadduu isticmaalayo allahuma salli xagga aqoonaan hataa hadduu isticmaalayo oo si fiican u daraasaynayo waxyaabihii loo dhigtay uu dib u baarayo oo research badan sameynayo wuu sarreynaya oo waxa laga yaabaa inuu ka wanaagsanaado kii aan saa samayn hadduu si qaldan u isticmaalo social media aada uga isticmaalo oo weliba wax aan wax badan u taliyin oo weliba xagga aqoonta ku salaysnayn inuu isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu ka hooseeyo allahuma salli ala kana dadaal yaraado qofkii aan isticmaalin kan labadaba badanaa shayada saameyn kara increase iyo decrease way keenaan marka waa in saa qodobkaasoo kale saas oo kale loo ogaado weeyaan marka internet usage-kaasna waxyaabaha saameeyo kamid korna u qaadi kara hoosna u qaadi kara amaba isticmaalkiisu kor u qaadi karo isticmaalaantiisuna hoos u dhigi karo amaba in la isticmaalaa allahuma salli ala maxamed inuu qofkii si qaldan u isticmaalaay uu ka wanaagsanaan karo qofkii aan sida qaldan u isticmaalin amaba aan isticmaalin waayahay kaa qodobkan laftiisu waxa weeyaan waa qodobada wuxuu ka mid yahay saameynaya academic performance ardayga qofka waxyaabaha saameynaya uu ka mid yahay aan the institutionka iyo macallinka ay guud ahaaneen oo haddii waxyaabahan oo dhan ay ardaygii saameeyeen macallinka way saameynayaan macallinku mar kasta wax weeyaan dawaardadiisa weeyaan haddii imtixaanada gala ardaydiisu ay hooseeyaan maanaa macallinkii waa hooseeya bay ka dhigan tahay macallinka hadduu hooseeyana systemka iyo management iyo leadershipka iyo iskuulka ayaa maamulkooda uu ka gaabiyo weeyaan saa daraaddeed wax muhiima markaa dee ardayga academic performance-kiisu wanaagsanaado macallinkii baa wanaagsanaanaya performance-kiisii sidoo kale waxaa wanaagsanaanaya institutionkii iyo dee nidaamkii baa wanaagsanaanaya waxyaabaha kale saameeya waxaa ka mid ah ugu dambaysiinaya previous qualification aqoontiisii hore weliba qodobada ugu waaweyn baaba noqon karaa aqoontiisii hore marka kolba halkaada taagii wixii ku horreysay saameyn bay ku yeelanaysaa allahuma salli ala ardayga waxbarashadiisa oo qofkii bil hore soo dadaali jiray dadaalkiisu badnaa amaba bayskiisu wanaagsanaa amaba laga yaabo inuu helay nidaam ka wanaagsan ka kale laga yaabo macallimiin aad u dadaashay
wanaagsan wax ku bartay inuu helo oo xoog ama isaga waqtigiisa ka faa'iideystay oo dadaalay marnaba ma dhici karto lama mid noqon karo qofkii aan intaa helin noqon karo saddeed wax loo baahan yahay badana ardayga waxa ugu muhiimsan imka waxbarashada aadka uga qaldan waxa weeyaan ardayga previous qualification-kiisii hore ayaan wanaagsan wax yar oo aad u hooseeya oo ardayga garan waayay mana ku dhacday inaad xagga hoose ka soo qaado waqtigii wax ku xidhay syllabuska lagu dhigay saddeed mushkilada ugu weyn ee haysta wax weeyaan iyadoo bilowga hore uu soo qaldamayo maamulka iyo nidaamku soo qaldamayo kabacdi markan dambe aad kaanaso si looga falceliyo ama ardayga academic performance-kiisa kor loo qaado saddeed previous qualification waxyaabo uu saameeya aqoonta ama base-kiisa hore ardayga uu saameeya waliba gaar ahaan high school-ka iyo intermediate-ka way ka saameyn badan yihiin base-ka lama jiro labada ka labada qof uu dhisnaado in mustaqbalkiisa dambe bidinkiisu eekaado intaas waa qodobada saameyn kara haddaba u gabagabada maxaynu ku kordhin karnaa academic performance maxaa la doonayaa in kor u qaado qodobadu way badan yihiin qodobadani wax aad badan oo ku saabsan ardayo academic performance-ka academic achievement-ka dad doonaysa inaad wanaagsan qodobada raac qodobadan haddaad raacdo macalinka performance-kiisa wanaagsananaya institution-kana wanaagsananaya nidaamka oo dhan wanaagsananaya kow ardayo academic ma alamsal ala maxamed wanaagsan ada academic achievement-ka imtixaanaadka grade fiican u keento aad noloshaada aanad ka cabsan mustaqbalka oo dhiiranaan ku wajahdo qofka maaragtay academic performance-kiisa xooggan yahay ritually hope unexpected أنا أقول شيء نحن في العيد وين نعرض الوين expect man وين تاسوق هاي قف كنوع عاسوق كلا academic performance كيسوي على مثلا على محمد دون مستقبل كيسوي ولا سنانة يعني قدر بدن هالعو مركز تلو محبورات اللي يعرض إنه academic performance كيسي أنت سكرك كيسي وسكت يوم سوق قدر كان شيء ومستقبل كان وحنا نكسر في الأنكار ديك لو قف ويسليبيا علورتي وجهياتك سادريد قodobadani waa qodobo inaga saameynaya ama baalam sala kor u qaaday ardayga waxbarashadiisa laga yaabo in kor u qaaday qodobka koowaad waxa weeyaan manage your time arday waqtiga time management skills layo maana waqtiga yar dad meel fadhiista saacadood ku joogo in yar had waqti ka loo aan ka murugata waana meel liin la jahada laga sangaari وغيره معقولة. Manage your time. أقول كذا read actively. سيدنا أخلص لا واحد مسؤولية. وأنا واحد ده. واللي 10 من تقوي أنا أخلص. إن بدن واللي ولا أخلص. لما تقول استين واحد أخلص ده. قلب بس واحد pay attention to your teachers or professors or lecturers. معنا lecturers. وحويان قطب آل وقالي وآل استعمال باجري حقا ما كان أنا واحد pay attention to those teachers معلمين ترى attention حد داخل لهم معنا ها إسكودي معلمك يا وحش الحياة ما وحش يجي حتى يبقى حاجة ده بروح قارب دونا واحد سميه صدق great notes في notes كنتوا على شرح ما قرض بدن بقى أي معلمك وحش الحياة واحد يرى ما نحتاج تكون جاتو قرأتها وحمي مشاهد سومالي وأذكر القراطي وإيري إنجليزي وقرأفوض وفهم كتاب القراطي وحيرو هل إيري بالقراطي وحسب الشاهد القراطي بشي عشكا كبحسن القراطي نوتس لكن واحد سوداء majority عشكا بدن جيسو إنه ألام سلام مسكحة القراءة معلك إيجي هاي كونتاكت مركلي معلك يجتسد مع القراطي حتى يتوشيني وحيا ويري يعني أو أن أذكر ما حتى علمي أوكي اللهم صل على محمد أسوق قضية كأتنشن وقف وشيء قالي أرضي وكأتنشن بدنيا هاي وكدل البدنيا هاي وكأكاديميك بيرفورمانس والحسنية هاي سدادي وقف كوي أذكر على نابتدأ كل هذا pay attention حلاق معنا كاغولين صدق بدون قاعدة وين وحيابا كان لا مثلا على محمد كان يحكم ذا قضبك أفراد حكم ذا utilize every class أنا يدو حويان أما حويان attendance اللي مالك
kasta galaas kasta joogo waan lama baahan xataa haddii casharku yeelyahay xataa haddii casharka aanad fahmin xataa haddaad is leedahay macallinkii ama si fiican casharka kuguma si fiican uguma wada fahmaysa ima galaas ugu xumudaad ka fahmi haba yaraatay iyo every class waan xaadirtaa galaaskaasi sugu doona haawa environmentkiisu ha wanaagsanaan iyaan wanaagsanaan qolka shanaad waxa weeyaan take great notes wanaagsan qaado noteska wanaagsan in yaroo sharaxaada ka mid ah oo macallinku ku sharxayo aad qoran karto iyo badankeeda markuu macallinku dhameeyo noteska qoran karto great notes wanaagsan 6 waxa weeyaan know your professor or teacher macallinkaaga guur maxaa laga wadaa macallinkaaga guur aamin macallinkaaga meed aamintaa in macallinkaaga wax ku faa'iideynayo wayna ogaataa macallinkaagii inuu wax kuu sharxayo inuu experience leeyahay inuu halkaaga soo maray inuu laabsanaada waxyaaba badan diyaariyey inuu kaa waaya aragsan yahay wayna aamintaa macallinka wayna aamintaa jeclaa tahay waxa ay wax badan ka bedelaysa academic performance inaad jeclaato ay sababaysaa inaad laabsan usoo dhawaato ay sababaysaa markastood macallinkaaga jeclaato oo loola cadayso happy ku noqotaay oo markastoo isaguna uu aad ugu laabsanaada nuglaanayo wax badan kuu sheegi karo niyadiisa dee ay wanaagsanaan karto adigana waxa laga yaabaa inaad wax badan ka faa'iido taa cagsigeeda haddaad sacabulsood afka taagto waxa laga yaabaa inaad wax badan ka faa'iidin macallinkaaga inaad wax badan ka faa'iidin oo niyadiibaad marka hore tiisiisay isku day macallinkaaga inaad ogaato ood ixtiraamto ood allahuma salli calaa maxamed aad u qadayso okay qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan aan ku gebagabeynaya qodobada saameynaya performance waxa weeyaan in allahuma salli calaa maxamed aad baadho daydaydo caawinta aad u baahan tahay maxaad u baahan tahay maxaa kugu adag halkaad ku wanaagsan tahay meelaha aad ku wanaagsan tahay sideed usii horumari kartaa meelaha aad ku liidata xaggeed ka keeni kartaa intaas waxa weeyaan waa qodobo caawimada kale aad u baahan tahay inaad baadi karto intaas waxa weeyaan waa qodobo inoo yar kordhinaya laga yaabaa academic performance waxyaabo badan inaan ku darsan lahaa waa suurtagala laakiin waxa laga yaabaa inaanan hadalka badinin allahuma salli calaa maxamed hadalku waa la dhaho milixda oo kale haddii aad cuntada looga badiyana ma fiicnaado haddii laga yarayna ma fiicnaado dhexdhexaadka ayaa ku wanaagsan markaasaa ku daynaya aad baad mahadsantiin asalaamu calaykum